marka waa fiicana intii yani isoo duceysay وما سنتين حول بدأ دون جوكتو كودا عيان صادي بحاتها بنادنا تاي محاتها وح قفل وح ساسو قفل بوناكسن dadku wanaagsan mar walba imtixaama ha waa Allah ka farxiyaha qoysaska bixiyaha deeqaha ubad balse marxalad kasto aad ku sugan tahay waa mid u baahan inaad kaga mahad celiso Allah tan iyo markii Cabbaas iyo Faa'iiso uu ka saqiiro cunugoodii yara waxay dadku su'aalo weydiinay ku bilaabeen Cabbaas ilaa ay gaarsiiyeen heer uu ka nasan waayay dadkaasi waxa uu yiri waxay in badan dadku ay weydiiyeen xaaskaaga Faa'iiso aaway xagee ayay aaday safar miyay gashay iyo arrimo kale balse soo kabasho in muddo way ku jirtay gabadhan iyo qalbigeedu u qaboobay ugu dambeyn waxay ka soo muuqatay baraha bulshada iyadoo dhoola cadeynaysa gabadhan iyadoo qiireysan marna cabiraysa dareenkeeda ayaa waxay tiri waxaan u mahad celinayaa boqolaalka qof ee ii soo duceeyay isla markaana mar waliba ay garab taagnaa waa ila damqadeen waxaan ay dareemeen xanuunka maalmahaas kooban aan dareemayay waan ogahay Allah ayaa inaga oofsaday nuunihii yara qadartana waa mid aan ku wada qanacsannahay aniga iyo sidoo kale ninkeyga ayay tiri gabadhan farxadda qofka ku tusin kara waa Allah qofka mugdiga ku tusin karana kuguna imtixaami kara waa Allah si sabarkaaga uu u ogaado Faa'iiso waxay u muuqataa ruux hadda sabarsan kuna qanacsan xaalad kasto way ka soo gudubtay haddana waxay u dhaqaaqday hanaqaadka nolosheeda iyo sidoo kale in qoyskeeda uu sii noqdo mid qurux badan siina dhisnaado gurigeeda gabadhan ayaa tiri wax kasto way kugu dhacayaan waana qadar Alle imtixaan kastana waa mid xagga Allah uu ka imaan karo waana caafimaad qaba hadda alxamdulillah waa idin jeclahay dadkaygiiow dib ayaan idinkugu soo laabtay